waxaan isleeyahay meeshii amisom ku kala cadaalaheed inay dalka dal oo danaha qaranka iyo dana saaxiibtinimo iyo in al-shabaab laga xoreeyo dalka haddii u joogeenna way cadaanayaan oo dagaalkay ka qaybgalayaan sideedaba fursadaha guuluhu marka inta badan waxay ku yimaadaan in fursadda iyo waqtiga iyo fuliyuhu ishelaan waxaan isleeyahay amisom muddada sheegaysa iyo ka horba waxay dalka u timid inay al-shabaab la dagaalanto al-shabaab inay la dagaalantana xarumaha dawladda muhiimkaana ay waardiyeeyaan waxaan aaminsanahay xarumaha dawladda muhiimkaana waa waardiyeeyaan airportka dekada meelaha muhiimkaana weli waa sidii oo anagii maanan bedelin dad ma ogtahay xarunta adigu inta ku tala gasho ciidanka kala wareegi lahaa diyaarsato amisom ku oran mayso ha iga bedelin marka shaqada horta anaga nagu noqonaysa waaye waxay kale ka qayb qaataan furumaha dagaalada furumaha oo waa ka qayb qaatay dad badan ku dhintay boqolaal amisom ha ku dhimatay Burundi uga dhimatay Ugandis uga dhimatay ayagoo dagaalamay hadda maxaa yimid marka ciidamada dawladuna waa dagaalamayeen dawladda markaas joogtana hadda waxaa yimid phenomena tii hore ka cusub iyo jawi cusub iyo fursad cusub oo shacabka inuu kaco dawladdiina ayadoo markaa waqti haysato xilli bilaabo joogto ay dagaal ku dhawaaqdo amisom dagaalka inay gashay u badnaa doontaa waana inay gashaa oo dagaalka shacbiga kacay iyo kan dawladdu inay garab siiyaan waaye hadafkii amisom loo keenana waxay ahayd in shabaab laga adkaado maanta marka haddii uu ahaa hadafkoodii ay u joogeen dalka in shabaab laga xoreeyo dalka hadduu ahaa halganka cusub bay garab gelayaan ay garab u noqonayaan oo waxaa la arkaa furumaha dagaalka ayagoo joogaa la arkayaa hadday ahaayeen mashruuc project meesha lagu haysto dalka si shabaab aan nooca shabaab u la dagaalamaan dadka nooc kale oo project kale oo ajnabi ah dalkii lagu waxyeeleynay meeshuu joogana de hadday kala cadaaneen waxaan isleeyahay meeshii amisom ku kala cadaalaheed inay dalka dal oo danaha qaranka iyo dana saaxiibtinimo iyo in al-shabaab laga xoreeyo dalka haddii u joogeenna way cadaanayaan oo dagaalkay ka qaybgalayaan hadday dana kaloo guracan amba maaragtaa waqti dhamaysa amba tacjiis ay u joogeenna way cadaanaysaa marka waxaan isleenahay waqti fursad hala siiyo horena dagaaladii dawladdu gashay qayb bay u ahaayeen kan hadda gacay oo kacdoonka dagaalana inay qayb ka noqon doonaan oo ay diyaar garoobayaan xogtaasan hayaa inay dagaalka galaana waaye marka in jaanis la siiyo weeye ayaguna xilli imtixaana bay ku jiraan inay taa fahmaan